waa qaybtii 11aad sheekada Hantaaqa Jacayl oo si taxane ah looga daawanayo channelka aan YouTube-ka ku leenahay ee Axmed Waaye Arag. Haddii aad nagu cusub tahay noo subscribe gare, ileen subscribe kuma ahan lacag waa dhiirigelin dhankaaga inooga timid. Waxay qaybta hore sheekada inoo maraysay Cawaale iyo Cawo oo kala fogaaday balse axdi meel wada dhigtay. Sheekadii oo inoo sii socotana ka bogasho wacan. Cawaale wuxuu nolol cusub ka bilaabay magaalada Riyaad. Inta uu maqnaana xiriirka isaga iyo Cawo wuxuu ahaa mid joogto ah. Markasta waxaa waraaqaha la isugu soo diri jiray boostada. Inkasta oo labada reer ee reer Xaaji Faarax iyo qoyska Daahir aanay ahayn kuwo isku san banaan oo aad moodaysay in marba marka ka dambaysa ay ku sii kala fogaanayeen arrinka Cawo iyo Daahir oo ay weli hooyo Xadiyo inantii ku sii dhegan tahay, ayaa dhanka kale Cawo waxay bilowday inay yarayso xiriirkii ay la lahayd Daahir, iyadoo haba yaraatee aan wax rabitaana u haynin. Ileen waa qof meel kale u jeedee, iyadoo weliba caddaysay inaanay rabin inay oori u noqoto Daahir. Taasina waa ta aakhirku keentay in warqaddii looga qaado Daahir, xaggaasna ay Cawo ku noqoto inan madax bannaan. Cawaale iyo Cawo xiriirkoodu wuxuu ahaa mid joogto ah, iyagoo isweydaarsanaya dhambaalada jacaylka. Marba marka ka sii dambaysana wuxuu ahaa mid sii xoogaysanayay. Maadaama uu Cawaale ahaa mid maalintii shaqeeya oo aanay u suuroobayn inuu boostada waraaqaha ka soo qaato, waxaa u soo qaadi jiray nin Sacuudiyaan ah oo ay deris ahaayeen, lana oran jiray Taariq. Maadaama uu markasta waraaqadaha u keeno Cawaale, wuxuu bartay dabeecadda Cawaale oo hadduu u keeno warqad Soomaaliya ka timid, waxa uu Taariq ogaaday inuu Cawaale si gaara u daneeyo kana farxad badan yahay marka ay warqado kale u yimaadaan. Wuu farxi jiray Cawaale marka uu helo warqad Soomaaliya ka timid, waxaanu Taariq siin jiray mushyaaqad. Taariq waxa uu bartay sida uu Cawaale u xiiseeyo warqadaha uga yimaada Soomaaliya. Sidaas daraaddeed, marka uu Taariq soo qaado warqad Soomaaliya ka timid, waxa uu ku oran jiray Cawaale, "Hoo, maanta waxa aan kuu sidaa warqadaad ku farxi jirtay." Taariq, inkastoo aanu waxba ka ogeyn in waxaasoo farxadi ay tahay jacaylka uu u qabo Cawo, haddana wuxuu dareemayay qiimaha ay u leedahay Cawaale. Waa maalin Sabti ah, bishuna tahay 28 Juun, ayaa Cawaale oo markaas uun shaqo ka yimid waxaa albaabka ku soo garaacay Taariq. Markii uu furay albaabkii mise waaba Taariq oo warqad u sidaa. "Salaamullaahi calaykum" iyo "Wacalaykum assalaam" ayaa la isdhaafsaday. "Warqaddaanan kuu soo qaaday maanta ee guddoon wacan" ayuu Taariq ku yidhi Cawaale. Markii uu ka qaatay warqaddii, ayuu isla markiiba isagoo aan halkii ka dhaqaaqin galkii ka furay, bilaabayna inuu taagnida ku aqriyo. Waxay ku qorneed far aad u macaan oo indhaha soo jiidanaysa. Cabbaar markii uu aqriyey, waxa uu bilaabay inuu dhoola caddeeyo, isagoo ay farxad badani ka muuqato. Waxaanay warqaddu u qornayd sida tan: "Ka socota Cawo, ku socota Cawaale. Walaal, waxaad iga guddoontaa salaan qaali ah oo ah salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaal, waxaan kugu salaamayaa 114 suuradood iyo 6,666 aayadood ee Qur'aanka Kariimka ah. Walaal Cawaale, waan fiicanahay, Ilaahay baana iga wanaagsan. Dhammaan dadkii oo dhammina way wada fiican yihiin. Adigana sidaa iyo si lamida ayaan Ilaahay kaaga rajaynayaa. Walaal, runtii waan kuu xiisay, maqnaashahaaguna runtii wuxuu naftayda ku beeray bohliyow joogto ah. Jacaylka iyo kalgacaylka aan kuu qabaana, walaal, waxaan ku qiyaasa ma garanayo. Had iyo jeerna waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu isku keeno innagoo nabad ah. Walaal, waxaan jeclaaday inaan maanta kuu sheego inaan noqday gabar madax bannaan oo aan walaal Daahir warqaddii ka qaatay. Waana Ilaahay mahaddii oo waa sidaan rabnay. Qofkan ku hamiyayaana waa adiga walaal Cawaalow. Haddaba walaal, sidaa ula soco, waxaanan kuu rajaynayaa guul iyo barwaaqo. Markastana Ilaahay baan ka baryaa inuu innagoo nabad iyo caano ah isku keeno. Walaal, adiguna iska soo waran, baryahan warkaaga waan u oomanahee, igana guddoon suugaantan qiimaha badan.
hadba waradhacdaadii laykaa wirwiriyo wanaag iyo kalgacal laygu kaa wariyee walbahaarka jacayl baa i weydhaamiyee wejigana xishood kaa waabtayey warsan iyo weedhsan ii soo wacay roob loo weehdayo aawadaa harwarayo wehelkaygiyow i weedhaamisee wahdiyo i wiiqdo socodkii wahsadayey wareegaystayo dibadaha wadhadayey warsan iyo weedhsan i soo wacay naftu waa rarowdo kaa daba waraaqdo waqalkii cirka i dul waabanoo wadiiqadan hilmaamo waanan hiigsadee weynahan baryee isma weyna'ey warsan iyo weedhsan ii soo wacay gacaliya adduunka adigan kuugu jeclahay adiga la'aantaana ma noolaan karo nabadgelya macaane ayay ku soo afmeertay dhambaalkii cawo waxay ahayd maalin xusuus mudan oo aad ugu qaali ah Cawaale waxay ahayd maalin uu aad u farxay isagoo u arkayay in riyadiisii rumowday farxadda iyo reereyntuna waxay ahayd mid si weyn uga muuqatay oo ay dareemeen dhammaan asxaabtiisu Cawaale maalintaas wuxuu sameeyey xaflad uu ku soo dhaweynayay furitaanka cawo wuxuu martiqaaday dhammaan asxaabtiisii iyagoo intooda badani isweydiinayeen waxa uu la niyooday xafladdan iyada ah maadaama oo wax ku soo kordhay oo ay ka warhayeen aanay jirin markii asxaabtiisii weydiiyeen waxa uu Cawaale u sheegay sida ay wax u jiraan oo ahayd in riyadiisii ahayd inuu cawo helaa noqotay mid rumowday Ilaahay baa xaal og waxaanu maqli jirnay ilmo dhashay oo loo wanqalee bal ka waran jacayl loo wanqalo sidaa waxaa yiri Wacays oo ay Cawaale saaxiib ahaayeen la soco qaybaha kale bal ka waran waxyaabaha soo kordhay maanta sidee bay kula muuqdaan muuqaalada inala sheer gareeya waxa inoo balana qaybaha dambe insha Allah